Kal Fadhiga iskugu yimaadeen qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Deegaanka Degmada Burco una shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka Golaha Deegaanka Degmada Burco Maxamed Jaamac Xasan Xoday ayay ku laaleen heshiis ay hore dawladda hoose ee magaalada Burco ula gashay shirkadda Dayib oo gacanta ku haysta kawaanka lagu qalo xoolaha ee magaalada Burco waxaana xildhibaanadani cod gacantaaga ku laaleen heshiiskaasi waxaana ugu horeyntii Kal Fadhigaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka Degmada Burco oo sheegay in shirkaddu ka soo bixi weyday shaqadii loo igmaday waxaanu sidoo kale tilmaamay baahida weyn ee u qabaan hilbilayaasha magaalada Burco in dib loo howlgaliyo kawaanka xoolaha ee magaalada Burco sida darteedna maanta la laalay heshiiska ay hore ula galeen shirkadaasi ama gowrac sida loo yaqaano kaasoo heshiis maayir kula galay muddo laga joogo 3 sanadood 4 sanadood shirkadda Dayib la yiraahdo in shirkadaasi ay ka soo bixi weyday heshiisyadii maayir kula galay waxa golaha maanta uu Kal Fadhi ka yeeshay arrinkaas isaga oo ka dooday halkan 13 xildhibaan baa fadhiya waxa uu isku raacay xildhibaanadu heshiiskii la galay oo maayirku degmada Burco la galay shirkadda Dayib la yiraahdo waxa la isagartay falaqeyn ka bacdi in heshiiskaasi uu buray kana buray dhinacii shirkadda sidaa daraadeed xildhibaanada Golaha Deegaanka markay dhinacyo badan ka eegeen markay ka eegeen xaaladda caafimaad ee degmada ku jirto oo shuban biyo jiro duruufahaas oo dhan markii la eegay Golaha Deegaanka ee degmada Burco maanta oo 13 bisha uu fadhiistay waxaanu ka dooday arrinka waxaanu si guud isugu raacay in heshiiska laga bilaabo 10 bisha 6 2017 in heshiiskaas uu buray qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Deegaanka Degmada Burco ayaa iyaguna sheegay in aanay jirin sababo ay shirkaddu xilka u sii hayso maadaama ay ku fashilantay shaqadeedii وهم بيبلغوا مكان يا هذا قف كنا في قلة يوم العقد هذا كدورين يا هم الله حلو قف كي أنا دور كذا إنه يعني قاعد السوق إنه ماشي قفنا كل حدين قالوا كل هذا يعني واحد كله كل ليه ماشي اللي بلا أنا واحد مفرنا إنه يقول الحردي ويني عندنا العقد هذا كقاعد ما يصدر ولا كقاعد ما عشورتي جور عادي هاي بالك كقاعد كنا شقين وعايش شروطها يكون قرن كدي ما كان قرني wixii aan u sameysannay ama u dalbanay xiriirka cusub taasoo shuruudaheedii iyo dalabka aan u dalbanay uu shaqeyn waayay sababihii aan ka baqaynay oo maanta taagan xaalad caafimaad oo nagu soo gaaray nasiib darro guriga oo dhisan iyo kii kale lagu shaqeynayo iyo xaaladii aan ka cabsanay oo timo bulshadeeda ku timi waxaan laalay heshiiskaas kaasoo ay jabiyeen shirkadda Dayib shuruudihii iyo heshiiskii ay wada galeen maayirka heshiiskii kale ahaa ee uu la galay shirkadda Dayib afartaas sanadood waxa laaliyo wax dhaqaale oo ka soo baxay oo dawladda soo galiyay lama jirto waxay ka qabteen meeshii oo ay tooy ku gonayeen ma jirto wasiirada galo wareegay bay hayaan way qufleen wala la yiri quflaan wax lagu yeelay in horumar keenan iyo sida maanta waxa yimid tiiba ka duwan oo xanuun ah oo wixii aan ka baqaynay baashi loo reeyay حلوكاس البلد مقاطي دبعتنا أول ما كنا خاطرته يا لا كل شيء هذا يسوي معنا وحالة المامي إيه هاي وبرضه لو قصوا معي حنون حريري حنون كيشوا بيوت ما عنده دور قاعدين ما شاء الله زموي كان فردي أو عن كل على شيء سكيب ما يركي ولا جلن شكل طيب كذا وعبد الرحمن روبلا عبد الله عبد الرحمن تريكه تلفزيون عالمي كرسنتي في مقالة برعو.